Asalaamu calaykum mar kale iyo cybercrime. Waxaan si kooban uga hadli doonaa cybercrime. Cybercrime waxaan dhihi karnaa waa dambiyada la xiriira kombiyuutarka iyo network. Kombiyuutarada waxaa lagu gali karaa dambiyo iyadoo la target gareysanayo dad kale. In kombiyuutar wax lagu hadlayo waxaa loo yaqaanaa cybercrime, waana sharci darro, anshax xumo iyo wax ka baxsan isticmaalkii saxda ahaa ee kombiyuutarka. Cybercrime waa in qofkii laga been abuurto, daatadiisa la xado, lana dhibaateeyo iyadoo loo isticmaalayo waxyaabaha kala duwan ee lagu rakaateeyo bini'aadanka. Macnaha ugu weyn ee aan ka faa'iideyno waxay tahay in cybercrime ay tahay kombiyuutarada oo wax lagu hadlayo. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah in la abuuro fayrasyo, in dad kaleento kombiyuutarada loo dhaco iyadoo la adeegsanayo noocyada kala duwan iyo hababka kala duwan ee maanta aan naqaano ee ah noocyada loo yaqaano phishingka iyo noocyada kaleento halista badan ee lagu helayo qofka xogtiisa. Aan fiirino 5 nooc oo halis ah oo ka mid ah cybercrime, kuwaasoo aan fiirin doono iyo example kale. Waa 5 tusaale oo ah tusaalooyinka cybercrime oo aan u dul istaagi doono mid. 1. Distributed denial of service. Qofka attackerka ah wuxuu la wareegi doonaa serverada, kadibna wuxuu amra siin doonaa serverada kuwaasoo iyagana siin doona daatooyinka iyo xogta dadka kombiyuutarada si isticmaalaya. Marka waxaa loo kala saaray 2 calaamood. Attackerka wuxuu maamuli doonaa serveradiina waxay daatada siin doonaan kombiyuutarada. Malware oo loo yaqaano malicious software waa 6 ka mid ah kuwa ugu halista badan malwareka. Ransomware waa in lagu soo weeraraa daatadiina la encrypt gareeyaa, kadibna lagu weydiisaa lacag madax furasho iyo hanjabaado hawada lagu soo marsiiyo. Spyware spy software wuxuu xadayaa xogtaada, waana mid ka mid ah kuwa xogaha jaajus. Adware waa advertise software, waxaana inta badan kugu qasbaya inaad fiirsatid xayeysiimaha dadka kale. Worms wuxuu ku fidayaa gudaha kombiyuutarkaaga iyagoo koobiyeynaya faylal fara badan oo ka mid ah kombiyuutarkaaga. Trojans waa virus halis badan kaasoo ku dhuumanaya gudaha kombiyuutarkaaga, wuxuuna awood u leeyahay inuu iska dhigo softwarada ka mid ah softwarada ku jira kombiyuutarkaaga. Botnets wuxuu bedelayaa dhammaan xogahaada kombiyuutarkaaga, wuxuu isu bedelayaa faylal virus ah oo kombiyuutarkaaga dhexdooda is cuno. Phishing waa xeelad aad iyo aad u halis badan, waana in qof kombiyuutarkiisa la gala kadibna laga xada passwordadiisa. Waxaa lagu soo dirayaa website u eg kan bangiga, kadibna waxaa laga codsanayaa inaad xogtaada gelisid, kadibna waxaa sidaas lagu heli doonaa xogtaada iyo passwordkaada. Lacagtaada bangigana sidaas ayaa lagula bixi doonaa. Mar walba iska hubi masajada kaaga yimaada bangigaaga. Credential attack muhiimadda ugu weyn ee jabsadahan waa inuu helaa passwordkaaga iyo username-kaaga. Waa waxa loo yaqaano authentication and authorization. Qofka hela passwordka iyo username-kaaga waa qofka authentic ah, laakiin ma ahan author. Number 5. Website hijacking waa in qofkii userka ahaa la afduubaa, loona afduubaa website qaldan. Waxaa lagu soo diri doonaa website kaasoo lagu dhihi doono waxaad ku bixisaa lacagaha biilka. Kadib waxaad bixin doontaa lacag biil, waxaad ku bixin doontaa website qaldan, waxay u dhici doontaa qof qaldan. Kana waxaa loo yaqaanaa DNS hijacking, domain name server hijacking. Qof walba waxaa muhiim ah inuu iska hubiyo website-ka uu ku dirayo daatada ma yahay midka saxda ah. Fariin walba oo ku soo dhacdo ma ahan mid sax ah. Warqad walba oo biil ah oo lagu keeno ma ahan warqadii saxda ahayd. Cidda ku keentayna ma ahan mar walba cid saxda. Iska hubi, haddii kale waxaa kugu dhici doonto in laga wareejiyo meeshii saxda ahayd laguna aadiyo meel qaldan. Cybercrime waxay hoos tagtaa maadada la yiraahdo cyber security, waana maadada qusayso in qofkii uu wakiil ama damiin ka ahaado sugidda amniga kombiyuutarada. Yaa ka hortagi kara cybercrime-ka? Cybercrime-ka waxaa ka hortagi kara qofka barta waxa loo yaqaano ethical hacking. Ethical hacking wuxuu leeyahay waddo aad u dheer oo qofkii uu ku soo gaari karo, waana waddada loo yaqaano qofkii inuu takhasus dheeri u yeeshaa maadada networking-ka sida CCNA-ga, CCNB-ga iyo CCNE-ga. Idin la soo wadaagi doonaa fiidiyoyaal aad iyo aad u qurux badan kuna faahfaahin doonaa cyber security-ga. La soco casharrada kale, nagu soo biir si aad ula socotid cyber security.